maalintii Arbacada ahayd oo ku beegneed maalinta koowaad ee Ciidul Adha ummadda muslimka ah guud ahaan dunida idilna ay u dabaaldegayeen maalinta weyn waxay ururka Galmudug ee magaalada Munich martiqaad u direen dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee dalkan Jarmalka ku nool guud ahaan gaar ahaan Soomaalida magaalada Munich iyo nawaaxigeeda ku nool dadkii ugu yeereen munaasabada loogu dabaaldegayay ciidweyneyda ayaan ka mid ahaa aniga waxaan jeclaystay inaan qayb ka mid ah barnaamijkeena Danjire idinkula wadaago maalintaas quruxda badneed iyo maamuuskii loo sameeyay dadka Soomaaliyeed ee magaaladan ku nool Faisensi Park oo ah beer weyn oo loo nasasho tago kuna taala koonfur bari magaaladan ayaa loogu yeeray dadka Soomaaliyeed inay isugu yimaadaan oo markii aan masaajidka Soomaaliyeed ay tawfiiq ku gudanay salaadii ciidda kadib waxaan u dhaqaaqnay dhankii munaasabada waxaana halkaas nagula hadlay gudoomiyaha jaaliyadda Galmudug ee dalkan Jarmalka waxa mahadnaqayaa qabaqaabayaashii dadkii juhdiga badan galiyay dadkii inaa sidaan maanta dadka Soomaaliyeed ee reemusha ay ciidaan suurta galiyay ilaahay wanaagsan ku waxa mahadnaqayaa jaaliyadda Galmudug ee magaalada Muushin gudoomiyaheeda iyo gudoomiye ku-xigeenkeedaba aad iyo aad gobolka kale tara waa laga yimid dadku way ka soo wada qayb galeen maadaama in badan ka shaqaynaynay maanta waxa ii muuqata in reemusha ay si qurux badan u ciideen iyo gobolada u dhadhowba imise qofooda isleedahay dacwadiina way aqbaleen oo ka soo qayb galay xafladan aad iyo aad u baasantahay maanta waxa ka soo qayb galay marka qiyaaso kale dadka 12 maana dhihine qiyaasteeda adiguna sida u jeedid 2000 ilaa 2500 ka soo qayb gashay barnaamijyo badan oo qabanaa jira sida sportiska dhalinyarada waa qabanaa school af Soomaaliga lagu barto oo xafiiska aan ku qabanno ilmaha Soomaaliyeed dhamaantood sabtiga ku qabanaa maalinta sabtiga ah sidoo kale waxa geynaa osfulugiya jira ilmaha la geeyo midda ugu weyn waxa weeye maalinta ciidda oo ciidda kale taa in reemushin sidoo hore ay u weedeenba waxa la tagi jiray meelaha Turkida iyo Carabtu ay xafladaha ku dhiganayaan ciidda laakiin annaga ka qabtay reemushin aad ay u baahan yihiin waxa aad ii soo jiitay habkii loo dhameystiray wax waliba oo ay u baahan kareen bulshadii isugu timid meesha oo meel waxa ka muuqday macmacaan dhanka kalena qadadii loogu talagalay dadka martida ahayd anigoo la dhacsan habka ay wax u socdaan ayaan si kadisa ku arkay miis oo nin aan bargaranayay taagnaa sheekadan ayaana dhex martay meesha waxa ku iibinaa shaah iyo kafee marka hore ummad Soomaaliyeed ciid wanaagsan kullu caam oo antu bixeer waa ujeeda maanta waa faraxsanahay si farxada u ciideena magaalada Munich waan ma santi insha Allah شاي إمساك ده سال شاي كل هالإيرون كذونا بس هالإيرون قف كهيرين والله إن شاء الله وعبالك مقاضي وما سنتها إن شاء الله بس shaahaas oo hal shilin ahaa aniga shaaftan ku helay macnaha wax lacag ah leega ma qaadin anigoo isla shaahaada ku raaxayso oo meel hoos leh la raadso ayaan arkay Muuse Nuur Naaji oo ka mid ah jilib culusta magaaladan waxaana ka codsaday inuu bal dareenkiisa nala wadaago bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa la yiraahdaa Muuse Nuur Naaji waa dadka magaalada muddo dheer degan ku jira maanta halka waxa uu imaanay ciid weyn oo aad ugu faraxsanahay inaan intaas oo dad Soomaaliyeed isugu yimaadaan macallimahooda waa farxad weyn oo maanta aan ugu faraxsanahay waa magaalada Muushin dad tiro badan ay joogaan dad hore joogaan dad gadaalkii ay joogaan magaaladan waxaan soo degay 1988 xilligaas macnaa dawlad Soomaaliyeed jirtay dadkii waxaan ahaa muddo badan degan magaaladan aad oo u kala yaqaano hadda aad ugu faraxsanahay in dad badan soo magaalada soo badatay in badan ay noo dhasheen alxamdulillah aad ugu faraxsanahay dadka halkan hawshan qabtay waxaan uga mahad celinaynaa hawshan ay qabteen ayagii wixii kala caawimo dhammaantood hore ma aragtay dad inta leegnay hal meel isugu yimaadeen marka dambaysta dadkan waa soo badanaa ilmiin waa soo badanaa laakiin marka maray kaga badan tahay ma aan arkin waan ku faraxsanahay horta waxa weeyaan waxa horta farxada waagaas anaga aan joogno aad baa loo yaray oo wadanka dawladdu buu lahaa laakiin saasay tahayna waxa weeyaan lama joogsanayo dadkii noo yimid iyo anagii waa la isgarab qabsaday waa la isla wadaa wixii hawshii nin wada meesha wax ka qaban karo ka qabanaya marka dadkan walaalaha ee hawshan qabtane waa u mahad celinaynaa dadka meeshan jooga magaalada Muushin in la midoobeen anaga faa'iido noogu jirta oo hal meel wax lagu wada qabsado oo yaani laga wada shaqeeyo waxa kale ugu muhiimsan oo hadda saarana waxay tahay annaga waqtigeena jiilkeena waa sii soconaa jiilka hadda soo socda
iyo ma hadda meesha ku dhashay in laga fikiro ayaga arrintooda ayaga waxyaabahooda iyo horumarkooda iyo waxooda in lagu hadduu la yiraahdo aan xoogga saarno insha Allah waa jazakallahu khayr ma santaa sidoo kalena doorka masaajidka isna kama marnayn munaasabadda oo waxaa meesha joogay xasan oo isna doorka masjidka ee munaasabadda noo sharaxay والله دي مساجدك مرة بحق وتاجر وح والب ومدى الصوماليات وفيعن وناكسن مركا حفلتها نوكلا ونسود ويننا إن ضدكي أي مال سكوي مادان عروتي كودا عيار سيستان وواحد بالشدة نعفو له مرة بنو قربتها جنة waxaan dhinaca eegaba iiga muuqanayay caruur dhalinyaro hooyooyin iyo waliba odayaashii magaalada waana markii iigu horeysay ee aan dad Soomaaliyeed oo intaas la eg ku arko magaaladan anigoo indhaha la raacaya muuqaalkaas quruxda badan ayaa nin dhalinyaro ah islaamay ina sheegay inuu marti ku yahay magaaladan jeclaystayna inuu fariin u diro halkii uu ka yimid waana tan fariintiisii waxaan joogaa aan ku suganahay magaalada Munukh waxa weeyaan waa ciidii iigu horeysay ee aan kala dabaaldego bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Motion iyo nawaaxigeeda waxaan oran karaa waa ciid aad iyo aad u qurux badan oo ka qabsoontay beertan ama barxaddan la isku soo baxay Soomaalida soo abaabushay iyo gudida ku hawlan ee farxadda ciidda soo qaban qaabisay ayaa mahad iska leh iyo dhammaan cid kasta oo hawshan farxadda ka qayb qaadanaysa Hamburg jaalida waanu leenahay wallow ay weli aanay ciidaha isku dayin sidan oo kale inay Soomaalidu la wareegto ama organisation loo soo ururiyo waxaan halkan fariin uga diri lahaa reer Hamburg inay isku dayaan maalimaha ciidda ama farxadda in la isku dayo oo talaabadan lagaga daydo bulshadan reer Galmudug ama Soomaaliyeed ee meesha iskugu timi wallahi xafladan aad iyo aad si qurux badan baan uga soo qayb galnay bulshada reer Galmudug ama ku sugan halkan waxaan leeyahay aad iyo aad ka sii dadaala oo intan meel ka sii sarreysa sameeya waayo waxaad ku dhaqaaqdeen bulshadii Soomaaliyeed oo dhan baad iskugu keenteen qaybtan maanta yoomul faraxa yoomul ciidka aad baan u mahadsantiin dhamaantiin sidoo kale halkan waxaan yoomul ciidka farxadda aan uga dirayaa dambaal farxadeed waalidiintayda iyo dhammaan qoyskayga meel kasta oo ay joogaan waxaan leeyahay caafimaad ku ciida dhammaan si nabada ayay u socotaa ciidu insha Allah sanadkiisa caafimaad iyo barwaaqo ayaynu ku gaari doonaa insha Allah waxaan rajaynayaa reer Hamburg inay fariinta ninka gaartay xoogaa kadib markii aan dad kala duwan ka diiwaan galiyay fariimahooda dareenkooda iyo waliba salaamahooda yaan meel horteyda ka arkay dhalinyaro isla jaan qaadaysa oo soo bandhigaysa ciyaarta dhaantada oo ah mid ka mid ah ciyaar dhaqameedka Soomaalida kuwooda ugu caansan aad bayna ugu mahadsan yihiin dhalinyartaas sida ay dhaqanka u nooleeyeen
muhiim cabdicasiis oo ah hormuudka kooxdaas ayaana wax ka weydiinay. waadhowahay marka horeeto magacaygu waa muhiim cabdicasiis oo ku nool waddanka Jarmalka gaar ahaan gobolka Bayr caasimadiisa Munich ummadda Soomaaliyeed marka soo joogto waxay leeyahay ciid mubaarak kul caam wa antum bikhair waxaan idin rajaynayaa ciid qurux badan gruubka maanta kaliya ma ahan waa wax sii jiri doona xalfadaha dambe soo socda Soomaalida qaban qaabsanayso inta ka gruubkan qaybta hablahaan anigu macallimad ka ahay marka waxaan leeyahay cid u baahan in dhaanta la baro iyo cid garanaysa ku soo dhawaada haddii xalfad la doonayo in la qabto haddii aroosyo tahay bandhigyada Soomaalida dhammaan waan ka qayb gelaynaa si qurux badan team isku xidhan weeyaan dad walaalo isjecel Soomaalinimadu midaysay insha Allah dareskana waxa idinku soo qoraynaa hoosta ama lambarkana laga soo xiriirayo. way mahadsan tahay muhiim iyo gruubkeeda siday u nooleeyeen dhaqanka bulshada dalkan degan ama guud ahaan Yurub ee muuqaalkan daawanayana way la xiriiri karaan dhalinyaradaas walibana dhiirigelin karaan iyagana way ku mahadsan yihiin. ciyaar dhaqameedkii kadib waxaa meel aan fogeyn iga muuqday caruur ciyaaraysa marka jiilka soo koraya aad ku raaxaysato ciyaartooda oo aad la dhacdo waxaa lagama maarmaana inaad xusto oo aad xusuusato jiilkii suurageliyay dhammaan arrimahaas oo waxaan la kulmay Cosoble oo ah oday Soomaaliyeed oo runtii wax badan ay mudan tahay in laga diiwaan geliyo. bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Maxamed Xaashi Cosoble ku magac dheer Cosoble kana tirsan guddiga jaaliyadda Galmudug xafladan caaqibada leh soo diyaarisay maalinta waa maalin weyn oo mudnaan ku leh ummadda islaamka oo ah maalintii ciidul adxa waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto inay sida farxadda leh ee aan ku ciidnay ay ayagana ugu ciidaan meel walba ay joogaan caalamka sidaas darteed waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa nimanka hawshan weyn soo diyaariyey muddo 2 bilood ah soo qabanqaabinayay ummaddan oo dhanna meesha isugu keenay caawa aad aragtaan waxa caruur halkaa ku ciyaarayo ee faraxsan waxaan leenahay aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin baxda saxaafadda oo arrintan ayadana door weyn ka ciyaartay waxaan leenahay idina aad iyo aadaad u mahadsan tihiin. isku dubaridaha munaasabadan iyo weliba mid ka mid ah raggii udub dhexaadka u ahaa inay munaasabadan hirgasho ayaa isna fariintii ugu dambeysay ee maalintaana la wadaagay. magacaygu waa Cabdulle Cali Ciid ahna xogayaha jaaliyadda maanta waxaan qabanay xafladii ciidda ahayd oo sanadlaha noo ahayd oo aan u qaban jirnay bulshada ku dhaqan magaalada Munchin iyo nawaaxigeeda waxaa ka soo qayb galay dad aad u fara badan oo kumanaan gaaraya caruurtoodu ay halkaan ay si fiican ugu ciideen oo ay ugu baashaaleen sidoo kale meeshaan waxaa jooga kooxda hidaha iyo dhaqanka ee gobolka Bayr oo dadka madadaalo aan caadi ahayn u soo jeediyey sidoo kale abtaaylunada way kala duwan yihiin waxaa goobtan lagu diyaariyey cunooyinkii cabitaankii keegii wax walba ay bulshada ay markaas ay jeclaayeen bulsho Soomaaliyeed aad u fara badan halkaan galabtay aad iyo aad u soo dhaweeyay anaga ka jaaliyad ahaan waxaa naga go'an inaan bulshada aan u qabanno wax walba ayaga ay jecel yihiin sida xafladan ciidoo kale waxaa kale oo aan rajaynaynaa inaan Summer Fest aan u qabanno oo Soomaalida waddanka ku dhaqan si iskugu yimaadaan maadaama dad badan oo kala baahay ay halkaan galabta ku kulmeen anagu waxaan sameynay kooxo ayaan tababarnay halkaan yimid oo galabta wacdara ka dhigay sidoo kale xafiiskeenu wuxuu uu saacidaa oo uu qabtaa ardada Soomaaliyeed halkaan ku dhalatay luqadda Soomaaliga inay macnaha wax ku bartaan xafiiskeena sidoo kale dadka xiran oo xabsiyada ku jira inaan markaas ku booqano oo aan hawlahooda aan soo furdaamino sidoo kale waxaan qabanaa dadka raba inay waraaqadaha loo turjumo ama laga caawiyo waraaqadaha dawladda inaan xafiiskeena yawmiyan ee dadka ka caawino Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed ku dhaqan magaalada sidoo kale sidaas darteed waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto fursadan Soomaalida ku dhaqan magaalada Munchin annaga waxaan leenahay heritage willkommen noo soo dhawaada gacmo furan qof walba oo Soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay inuu annaga noo yimaado su'aalana weydiiyo hadduu caawinaad u baahdana aan caawinaadii diyaar u nahay sidaas iyo si la mid ah waxaan leeyahay Soomaalida meel walba ay joogto ciid mubaarak waxaan Soomaalida ku dhaqan Munchin iyo nawaaxigeeda uga mahad celinayaa
sida ay u soo ajiibeen xafladdan oo ay guryahoodii uga yimaadeen si ay meeshan farxadda ciidda ugu qaataan ayagoo markaas waxa waaye soo ajiibay dacwadeennii boqolkiiba boqol aad iyo aad u mahadsantihiin sidoo kale waxaad naga sugtiin sanad walba sidaan iyo si ka daran inaan macnaha u soo agaasimna xafladdii aad jeclaydeen oo ciidda iyo xafladaha soo socda Summer Festiga aad bay u mahadsan yihiin jaaliyadda galmudug ee magaalada Munich sida quruxda badan ee intaasoo Soomaali ah u martigeliyeen una muujiyeen reer Munich inay leeyihiin dad u dhaqdhaqaaqa kana shaqeeya isku xirka guud ee bulshada Soomaaliyeed annagana waxaa naga go'an cid waliba ee wax uun anfacaya bulshadan iyo dadkeedaba ka shaqeyso inaan codkooda gaarsiino meel waliba oo aan awoodi karno haddii aad maqli jirteen ama aad akhrin jirteen fariimaha ka imaanaya Jarmalka iyo dadka Soomaaliyeed ee ku nool inay u badnaayeen dad wax dhibaateeya ama iyaga la dhibaateeya maanta waxaan idinkaga tegaynaa inaad si nabad ah ugu raaxaysataan qayb ka mid ah dadka Soomaaliyeed iyo dhalinyaradooda oo magaaladan si nabad ah ugu dhaanteynaya Solid ligo, alla la xariiray, alla hurda ka